kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Galmudug Axmed Geele Ducaale Xaaf isla markaana ahaa kuna lagu magac daray iskaashiga dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay adkeynta amniga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo sidoo kale in gacanta lagu soo dhigo shakhsiyaadka mararka qaarkood falalka amni darro ka geysta gobolka Mudug kulankan oo socdo badan socda waxaa ka qayb galay wasiiro iyo taliyaal ciidan oo ka kala tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug waxaana ugu dambeyntii laga soo saaray war saxaafadeed looga hadlay xaaladda guud ee gobolka Mudug iyo sidoo kale siyaasadda midaysan ee Galmudug iyo Puntland ee ku aadan dowladda dhexe ee Soomaaliya labada maamul waxay isku raaceen in guud ahaan ay ka soo horjeedaan sharciga badroolka canshuuraha iyo sidoo kale sharciyo kale oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay gacanta ku hayso kuwaas oo ay sheegeen in aysan ahayn mid lagala tashaday maamulada oo ay gacanta ku hayaan shakhsiyaad dowladda dhexe ee Soomaaliya ka tirsan wixii ka soo baxana aan lagu dhaqmi doonin aan la keeni doonin deegaanada Puntland iyo Galmudug sidoo warbaahinta u sharaxay afhayeenka maamulka Puntland Jaamac Yuusuf Jaamac madaxda dowladaha Puntland iyo Galmudug waxay ka tacsiyadeeyeen dhacdadii 22 May 2019 ka dhacday tuulada Teerage ee galbeedka magaalada Gaalkacyo waxayna go'aamiyeen in si dhakhso leh loo soo afjaro shaqooyinka ka dhaca deegaanada miyiga ah labo waxa madaxda labada dowladood bogaadin u soo jeedinayaan dadaalada nabadeynta ee ay hormuudka ka yihiin madaxda dhaqanka iyo labada maamul ee heerarkooda kala duwan waxaa lagu heshiiyey in laga wada shaqeeyo adkeynta nabadgelyada dib u heshiisiinta iyo dhamaystirka hirgelinta heshiisyada labada dhinac ee hore u galeen lana xalliyo dhacdooyinkii hore u dhacay ee aan weli xal laga gaarin in laga shaqeeyo sidii xal waara loogu heli lahaa nabadda gobolka Mudug dowladaha Puntland iyo Galmudug waxay bogaadinayaan taageerana siinayaan howlaha firfircoonida leh ee ciidamada isku dhafka ah ay ka wadaan gobolka Mudug in labada dowladood iska kaashadaan kana wada shaqeeyaan sugista amniga iyo in si midaysan meel looga soo wada jeensado la dagaalanka ururada argagixisada ah farqada koowaad ee qodobka 6aad waxaa la isku raacay in la xoojiyo wada shaqeynta hay'adaha amniga ee gobolka iyo hay'adaha kala duwan ee maamulka labada dhinac farqada labaad ee qodobka 6aad waxaa lagu heshiiyey in la soo qabto dadka faldambiyeedyada sameeya sida dilka dhaca iyo falalka kale ee wax u dhimaya xasiloonida gobolka waxaa la isku raacay muhiimadda ay leedahay in dowladaha Puntland iyo Galmudug ay yeeshaan mowqif siyaasadeed oo midaysan ee dhinacyada amniga nabadda iyo dhismaha dowladnimada federaalka ah ee Soomaaliyeed farqada koowaad ee qodobka 7aad dowladaha Galmudug iyo Puntland waxay ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba ku wargelinayaan inaysan qayb ka ahayn waafaqsanayn sharciyada doorashooyinka badroolka iyo xeerka cashuuraha ee dowladda federaalku gacanta ku hayso aysan qayb ka noqon doonin wixii go'aano masiiri ah ee aan lagu gaarin wada tashi iyo wadar ogol dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah kulamada joogtada ah ee ay leeyihiin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Geele Ducaale Xaaf ayaa weli ka sii socda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana sidoo kale kulamadan ay ku soo beegmayaan xilli dhawaan madaxda Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Puntland ay samaysteen iskaashi sidan oo kale ah oo ay kaga soo horjeesteen sharciga canshuuraha dalka oo wasaaradda maaliyadda dowladda Soomaaliya ay diyaarisay